jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Puntland iyo maamulka jaaliyadaasi oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa ka tacsiyay xasuuq ay sheegeen deegaanka ismaamulka Oromada Itoobiya in lagu geystay Soomaali ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Siday jaaliyaddu sheegtay goobaha xasuuqa ugu badan uu ka dhacay waxaa ka mid ahaa magaalooyinka Hawaday, Balbaleytiya iyo Daarulaba oo dhammaantood ka wada tirsan ismaamulka Oromada Itoobiya. Maxamed Cabdinaasir oo ah gudoomiyaha jaaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Puntland ugu horeyn madasha ka hadlay waxa uu dowladda Itoobiya ugu baaqay inay sharciga hor keento cid waliba oo falkaasi ka dambeysay. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabweynaha reer Itoobiya ee Puntland ku sugan gaar ahaan shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kana turjumana jaaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Puntland. waxaan halkan aan maanta joogno uga tacsiyeenaynaa xasuuq wadareedkii loo geystay shacabka Soomaalida Itoobiya ee loogu geystay dowladda deegaanka Oromiya gudaheeda ayaan ka tacsiyeenaynaa. sidoo kale waxaan cambaaraynaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay xasuuq wadareedkii shacabka Soomaalida Itoobiya loogu geystay dowlad deegaanka Oromiya. sidaa daraadeed waxaan dowladda federaalka Itoobiya iyo dowladda deegaanka Oromiya ka sugaynaa in ay sharciga hor keenaan cid kasta oo gacan ka geysatay xasuuqa iyo cid kasta oo falka ka dambeysay in sharciga la hor keeno. waxaan nahay shacabka Soomaalida dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan ku faanaynaa muwaadinimadayada Itoobiyaanimo cidna umada ma fadhino. sidoo kale qaar ka mid ah jaaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka tacsiyay dhacdadii ku timid walaalahooda iyagoona ka waramay dareenkooda. waxaan tacsiye halkan uga dirayaa dadkii lagu laayay dowlad deegaanka Oromiya ayaan tacsiye halkan uga dirayaa dowladda federaalka Itoobiyana waxaan uga fadhinaa iyo ra'iisul wasaarahaba inay hawshii ay galaan oo ay dadkii ka dambeeyay la hor keeno dambi baarista iyo maxkamadda. waxaan halkan tacsiye uga dirayaa dadkii lagu xasuuqay dowlad deegaanka Oromada. marka waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto. waxaan dowladda ka codsanaynaa in ay maxkamadda soo horjoojiyaan dadkii falka ka dambeeyay iyada ah ee dadka maatida ah ee aadka u tabarto daran meesha lagu laayay. waxaan aad uga xunnahay wixii ka soo yeedhay Itoobiya gaar ahaana dowlad deegaanka Oromiya arrintaasoo ahayd dad shicib ah oon hubaysnayn oo masaakiin ah in hal goob lagu dilay kadibna gud lagu guray. shirkan jiraa'id ee jaaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Puntland ay ku qabteen magaalada Garowe ayaa ku soo aadaya xilli saddexdii bilood ee ugu dambeysay dilal kala duwan ismaamulka Oromada Itoobiya lagu geysanayay Soomaalida ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Cabdi Fataax Cabdullaahi, wararka TV-ga caalamiga Universal, Garowe.